السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا جعل هاي ميل والبواد دنيا كجوكتان رمضان كريم. ورهد صور دعي أي شيء جاي إن دولة كندا أي قرشين يسوع إن سد أحد السنة يسوع عطه لا يريد دونه وحلو يقانو temporary residency أما دجناشها كملجار كأه وسير كإميجريشن كوجر والصحافة الله الله أي شيء in dowladda Canada ay qorsheynayso saddexda sano ee soo socoto in la yareeyo doono dadka ku imaanayay waxa loo yaqaano temporary resident. Wasiirka ayaa sidoo kale ku daray in qorshahaas uu bilaabo doono September sanadkan. Waxaan ogsoonahay in temporary resident ay ku imaan jireen boqolaal arday ama boqolaal kun oo arday oo ka imaanayo dunida dacaladeeda. Sidoo kale waxaa ku imaan jiray dad ku yimaado qaab shaqo ah iyo qaab si sharci darro ah. Dhammaantood wuxuu wasiirku sheegay inay yaraan doonto fiisahaas ka bilaabato September sanadkan. Wasiirku wuxuu u sababeeyay waxaa jira ayuu guriga la'aan fara badan dalkan Canada waxaana soo gala sanadadii la soo dhaafay dad tiro badan. Sidaa darteed waxaa la yareyn doonaa dadka ku imaanayo temporary resident. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.